kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan waa mar kale xubinteeni faaqidaada waxaana diiradda aan ku saari doonaa hadduu eeba uu idmo xaruntii nise ee habar khadiija oo caawa gabi ahaanba qeybta hubka kaydka basbeersay ayaan kusoo qaadan doonaa. waxaan kaloo qodobada wararkeena aan kusoo qaadan doonaa magaalada muqdisho aada moodo habeenadan inuu amnigeedu uu degan yahay kadib markay ciidamada dowladda ay aada howlgalyo xoogan ay daafaha magaalada muqdisho ooga bilaabeen. sidoo kale wararkeena waxaan kusoo qaadan doonaa ururka al-shabaab saraakiisha ugu sarsareysa oo raba in ay si beelaysan ay dowladda iskugu soo dhiibaan oo nin walbaba qabiilkiisa uu hoos galo. qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaan ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena, waxaana isha ku hayaa saaxiibkay gooni falanqeeyaha barnaamijkeena. soo dhowow gooni. wararku waxay sheegahayaan xarunta nisa caawa inay gubatay. nisa yaa gubay? nisa yaa gubay anaa weydiinaysa waa la yaab niyo xarunta nisa qaybta hubka keedka hubka ayaa gubatay marka waxaana waa wax lala yaabo waa meel hubka oo ku xareysnaa magaalada muqdishona qaraxyada aad looga maqnaaya caawa habeenimadan marba mar ka dambeysana waxbaa damayo dibdamis soo gaara meesha ma jiro marba mar ka dambeysana qarax baa yeeraya oo hubkiiba sii bacbacleynaya meesha marba wax weyna qarxayo mar wax yaraa qarxayo marka niyahow arrinta waa la yaab hay-adda nisa waxyaaba badan lagu eedeynayana hadda wixii way isa soo tarayaan waxaana wararku ay sheegayaan in hay-adda nisa dhexdeeda ay ka dambeyso gubashada habar khadiija sababtoo waxaa laleeyahay saraakiil fara badan oo waaweyn oo shabaabka meesha ku jiro uu kamid yahay doctor fanax ayaa la doonaya in la fakiyo taasoo marka ay suuragal ka dhigayso markay qaraxyadu dhacaan oo ciidamada isku dhex yaacaan in macnaha dhibaatada ay soo badato markaas la mashquulo ciidamada nisa intooda badan howlgala loo diray habeenada lasoo dhaaf howlgalay magaalada ka wadeen marka xarunta dad yar oo waardiyaal ayaa ku haray kuwaas ayaan hadda sheegaya in ayaga ka dambeeyeen wararkan waxay sheegayaan inay nisa raggeeda ugu sarsaray iyo ogyihiin arrintaas mahad salaadna ugu weyn yahay danta laga leeyahay in saraakiil waaweyn oo shabaab la fakiyo ayaa la rabaa marka hadalladaas ayaa suuqa ku jiro wixii runa ilaaha naga og laakiin hadalka ugu badan hadda la hadal hayo xarunta nisa qaybta kaydka hubka nisa naftirkeeda ayaa gubtaa leeyahay mahadol cabdiyow waxaa lagu eedeynhayaa in ay taliyaha nisa asaga oo rag shabaab ah in hoosta laga sii daayo oo laga yaabahayo inay hadhow sire ay bixiyaan sirtaana asaga ay lugaha lasoo gasho laga yaabahayo inuu arrinkaa uu ka dambeeyey si hoosana arrintan la rabay inay rag loogu fakiyo hase ahaatee arrintii mayn suuragelin baa laleeyahay maxaa ka jira qodobadaas horta waxaan horta siyaasad waaye wax walba markaa isku day waaye laakiin tan isku day ayay aheeda leeyahay maadaama qaybta hubka ay gubatay xagga ragga waardiyaasha qaybo kamid ah ayaa cararay oo qaraxyada ka cararay oo weliba kuwo kale waxay leeyihin meesha waa sii gubane meesha dad fara badan oo ciidamo meelaha ku dhawaayna kuwana meeshay soo gaareen oo waa la yaabeen qarax ka yara kuwo kalena waa kasii carareen marka meesha waa la isku soo galaa lasii rabay inay shabaabka soo galeen inay wixii kale waxa dhaceen waxba iska daba dhacay waa lagu wareeray marka cabsidii yaa badatay shacabka way kala carareen dadka xaafadaha ka dhawaay dhan way carareen waxaa kaloo cararay ciidamada qaybo kamid ah xataa meesha way ka carareen wixii meel oo laga jiraa la fahmi waaye mar haddii holac iyo gubashi iyo wax dhawaaq isku darsameen markii dambena dabdamiska iyo wixii loo baahda xataa meesha diyaar kuma ahayn marka waxaana wax la siyaasadeeyey in shabaabka ay meesha ku fakadaan ayaa la rabay laakiin waxay nasiib wanaag guryaha hadda sheeg gubtay qaybta maxaa waaye keedka hubka waaye waxaana weli waxaa xirnay xarunta ay ku jiraan nimanka saraakiisha maadaama ay tahay dhulka hoostiisa oo aysan ahayn qaybta kore qaybta hubka ku gubtana waa qaybta kore oo banaanka ah qaybta oo nimankan ay ku jiraan dadka maxaabiistana dhulka hoostiisa waaye godka jilacow qof walba ma yaqaano qofkii lagu xiray ama booqday ayaa yaqaano markii aad tagtid xarunta gudaha ayaa u galaysaa qolalka dadka lagu xirana dhulka ka hoos waaye waa hoosa loo dhadhacaya marka taasoo kale meelahaas ayay ku jiraan marka isla markii meel qof inta wax ka furo oo isheg hore ay nimanka saas u baxsadaan way suurageli weysay nimankiina wax baxsada ma jiraan shabaabka meesha ku xiran yihiin laakiin qorshaha laga lahaa qalqal in la geliyo shabaabkaasna meesha ay ka baxsadaan ahayd marka qorshe weyn oo midaysan oo laisla wada ogyaha ma ahayn laakiin rag gaar ah sirtaas watay wixiina way ku fashilmeen leeyahay mahadow mar walbana way dhacdaa hay-adaha amniga habacsanaanta inay mar walba ku dhacdo dhowr habeen markii magaalada howlgal fiican laga sameeyo oo magaaladu amnigeeda soo hagaago waxay sameynayaan in isdhigasho ayay sameynayaan marka mahadow taas ayaa keentay hadda laakiin wax hadda baxsaday ma jiraan laakiin qaraxyadii mar ka dambeysa waxbaa dhacaya aada iyo aad ayaad mahadsan tahay adiga iyo daawadayaasheenaba qodobkeena kale haddaan horay aan u gudagallo shabaabka raggii ugu sarsareeyay ee warku waxay sheegayaan in ay rabaan isa soo dhiibaan oo nin walba beeshiisa uu hoos galo oo si qabiilaysan yuu saraakiisha oola soo xidhiidhayaa
maadaama shabaabku ay dagaalka ay ku jabeen haddana aada moodo in ay kala carar ku jiraan shabaabku say rabaan. والله horta saraakiisha shabaab waxaa leeyahay xaaladdu waa ku adkaatay meel hadda ay u baxsadaan ma lahan hadda shabaab saraakiishoodu waxay isku bedeleen qabiil cali dheere wuxuu noqday nin oo beesha mursado ka dhashay ninka la yiraahdo mahad karataay wuxuu noqday nin beesha habargidir ka dhashay rag kaloo fara badan waxay noqdeen rag xawaadle ka dhashay rag kale waxay noqdeen rag galajacel ka dhashay marka hadda ay qabiilaadka isku bedeleen markay 17 sano ummadda Soomaaliyeed leeynayeen ay qarxinayeen ay hadda qabiil isku bedeleen waxaa leeyahay cali dheere wuxuu la soo xiriiray xildhibaan Jacfar oo usoo dirsaday maxaa la ergo odayaal ah inay macnaha ay kala hadlaan dowladda federaalka Soomaaliya asagana si qaas ah oo hubka u haayo iyo maxaa la yiraahdaa inuu ku wareejiyo Jacfar iyo Cabdimalik Maalin iyo raggii hore ee dowladda ka tirsanay saraakiisha in lagu wareejiyo hubka shabaabka u haayo iyo ragga macnaha ciidamada inuu ku wareejiyo asaguna si nabad loo soo dhiibo beeshiisana uu ku dhex noolaado go'aan laga gaaro oo markaas beesha mursada ay go'aan ka gaarto cali dheere saas ayaa wararku sheegayaan marka xildhibaan Jacfar wuxuu yiri arrintaas aniga waan ka soo fikiraa odayaashii ergada oo soo dirsadana weli way xiran yihiin oo lama sii dayninba ayaga la xiray oo laga shakiyay marka deegaano fara badan oo ka tirsan beelaha mursada ay degaan oo ay ka mid tahay ceelbuur iyo wabxo iyo galhareeri iyo jacar iyo bargaan iyo dhulkaas oo dhan ba shabaabka haysto wuxuu leeyahay wixii ciidamo halkaas ku sugan dhan waa soo saaraa dowladda federaalka Soomaaliya ay nafarta ka saaraya aniga nafsadeeda halee badbaadiyo waxaa kaloo asagana xiriir la soo sameeyay leeyahay mahad maxamed salaad ninka loo yaqaan taliyaha nisa waxaa xiriir la soo sameeyay ninka la yiraahdo mahad karatay kaasoo isku beel ay ka tirsan beesha habargidir gaar ahaan beesha ceer ay ka wada tirsan yihiin asagana wuxuu yiri aniga nin habargidir ahay oo ceer ah waxaan u baahanahay inaan isku dhiibo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u baahanahay ma salaado madaxaada inaan liigu dilin oo adigu aad wakiil iga noqoto dowladana si caadi isugu dhiibo marka labadooduba saas ay beelahooda ula soo xiriireen wax oo hadda dowladda ay jawaab toos ah ka bixisay iyo xildhibaanada iyo taliyaha nisba go'aan ay ka gaareen midna ma jirto laakiin inay la soo xiriireen xog macnaha ay soo siiyeen sida ay rabaan iyo inay isku dhiibaan ay rabaan ayaa la cadeeyay marka go'aanka ugu badan oo ugu weyn waxa laga soo madaxweynaha Soomaaliya oo maqay hadalka Djibouti ayuu aroos kaga qayb galay Sadiq John iyo gabadh Ismaaciil Umar Geele ku aroosay marka wili wuxuuna laga yaabaa inuu sii aado dalka Washington dalka Mareykanka magaalada Washington inuu sii aado laga yaabaa marka intaas ma suuragelin laakiin xiriir ay la soo sameeyeen nimanku way calaacalayaan haddana qabiil isku bedeleen nimankii 17 sano balaayada iska dhigay maado amniga magaalada Muqdisho oo maalmo hore faraha ka baxay dhowrkan habeen waxaad moodaa inuu yara degan yahay deganashadaas maxaa sababay والله horta amniga magaalada Muqdisho habeenada la soo dhaafo fiicnaa howlgallada ciidamada ayaa aad u batay baaritaanka ayaa joogto noqday baawarta yararka iyo bajaajka aad loo baarayay habeenkii 6 saac bajaajka aan shaqeynayno way dhaqan shay ma shaqeyn karto kontrooladan waa la badiyay hadda xalay ilaa caawa waxa howlgal culus oo ka socda deegaan Garas Baaley iyo meelo kaleeto waxa kale oo baaritaan lagu sameeyay Hilwa oo aydan lagu noqdaa gubta meelo kale oo far badan ay aad loo baaraa meelaha la dhihi karo shabaabku ka soo galeen ay baaritaan bariyaan ku socdeen marka hay'adda nisa ciidamadeeda iyo ciidamada dowladda booliiska iyo harmacad iyo kula isku daray ayaa howlgal saayid sameeyay kontrooladan waa la adkeeyay control qof ka soo gudbi kara si nadiif ugu soo gudbi kara waa ishak waa adag tahay haddana sidii ayaan dhaw isqabsiga u dhacay oo hay'adaha amniga aad loogu soo jeediyay hadda baaritaanka zaid ayuu noqday waxaan u maleysaa in la kala cabsanayo hadda oo wax fududeynaya aysan jirin oo la isku adkeenayo oo shacabka iyo baawarta iyo kulli aad loogu adkeenayo wax soo gudbi karana jiraan waxaa lagu dhaawraa saraakiisha hadday soo idin soo amraan ay dhahaan baawarkaas hebel soo gudbiya ka diida haddii amarkaas soco weysana la soo xiriira madaxweynaha iyo dadka ka sarreeyo amar wasaaraha la soo xiriira lagu dhahay ma jirto gaari la soo deenayo anoo iga wakiil yahay anaa ka wakiil soo daaya la dhihi karo ma jiraan lahay marka waxyaabahaas waa laga hortagay cabsidii ciidamada iyo saraakiishana way soo badatay ayagana kala shaki soo kala dhexgalay degdegii hore oo wax lagu dayn jirna ma jirto maadaama hadda hay'adaha amniga ee baaritaanka zaid ka dhigeen wax badan amniga magaalada Muqdisho laga dareemaya labada isbuuc hadda la soo dhaafo maado waan ogaan doonaa wararkeena dambe ayaan ku faahfaahin karnaa wixii kale oo nagu soo korodhay insha Allah kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay gooni falanqayaha barnaamijkeena sharta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan saasiyo nabadgelyo